kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn daawadasha qiimaha leh ee dalka Russia oo ku dhawaaqay inuu hubka ugu culus ee hypersonic uu isagu ku horeeyo ayagoo markii ugu horeysana sheegay in Mareykanku 20 sanadood kadib uu daba ordayo si uu gaaro halkaas dalalka Zambia iyo Mareykanka oo isku dhacay iyo dalka Zambia oo eriyay safiirkii dalka Mareykanka isla markaana fariin adag u diray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay inuu wali sugayo wuxuu ku sifeeyay hadiyada ka imaanaysa dalkaasi waqooyiga Korea noocay tahay kastana ay markaas la tacaamuli doonaan dalka isku tagay Imaaraadka Carabtana waxa la ogaaday inuu dalka Mareykanka doorashadiisa faragelin xoogan ku sameeyay dhaqaalaha ku bixiyay qodobadaas iyo koob kale aad ku maqli doontaan wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda waa 25 December waa maalinimo Arbacaa oo markale barnaamijkeena falanqaynta wararka gaanka gandunida oo dhan daawadayaal aan ku bilaabay markaan ugu horeysiiyay dawladda dalkaasi Turkiga waxdeeda dhinaca horumarinta hawada iyo markaasi science-ka ee Turkish Aerospace Industries Thai loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in xafiiskeedii ugu horeeyay ay ka furatay dalka Pakistan ayagoo sheegay in xafiiska lagu goleeyahay in la fuliyo go'aamadii iyo heshiisyadii labada hogaamiye dalku ay ku gaareen sanadkan horaantiisii iyo markii ay ku kulmeen magaalada Istanbul iyo magaalooyinka Ankara isla markaana ay ku heshiiyeen in iska kaashadaan dhinacyada kala duwan ee dhinaca waxa loo yaqaan difaaca tiknoolajiyada iyo in la sameeyo markaas taxaaluf dhinaca wadamada waaweyn ee caalamka Islaamka waxaa la sheegay in xarunta Thai ay ka furatay xarunta weyn ee ciidanka dalkaasi Pakistan ay ku leeyihiin dhinaca tiknoolajiyada loo yaqaano xarunta sayniska iyo tiknoolajiyada ama sidoo kale loo yaqaano the National Science and Technology Park waxaana sheegeen in arrinta lagu goleeyahay si loo fuliyo heshiisyadii hore iyo go'aamadii hore ee dhinacyadu u gaareen afayeen u hadlay waaxda dhinacaasi shirkadda u qaabsan Thai suuqgeynta ama agaasimaha guud ee suuqgeynta iyo waxa la yiri isgaarsiinta ayaa Thai ayaa yiri waxa aanu noqonay dalkii ugu horeeyay ee muslina ee loo ogolaado inuu dal kale oo muslina uu ka furto qalabka dhinaca tiknoolajiyada iyo inay suuqgeeyaan ayuu sheegay wakaalada wararka Anadolu agency ee dalkaasi Turkiga ka soo baxda waxa uu yiri waxaanu sii wadi doonaa in ay tan noqoto mid wax tar u noqota dalalka taasoo aan daba socon ayuu yiri heshiiskii Imran Khan iyo Erdogan ay kala saxeexdeen madaxweyne wuxuu yiri Erdogan waxa uu horey noogu sheegay ama noogu yeeriyay ayuu yiri inaanu sameeyno wax kastoo karaankanada aan ku xaqiijinayno in la sii wado ayuu yiri kulankaasi iyo waliba maalgelinta noocaas oo kala goor sii horeysay oo sanadkii hore ahaydna bishii July waxa ay labada dal ay sheegeen in ay durbabe ay daabuleen diyaaradaha dhinaca helicopteriska ee attack loo yaqaan ee shirkaddan oo farsamaysay dalka Turkiga taasoo soddon kamid ah ay sanadkii 2008 dhamaadkiisii 18kii ay iibsatay dawladda dalka Pakistan arrintan ayaa waxa ay ku sabeegmaysaa iyadoo loolanka dhinaca isku soo dhaweynta caalamka iyo gaar ahaan wadamada caalamka Islaam oo si weyn u wado madaxweynaha Turkiga oo doonaya isagu in qalabka military ee dalalka muslimiintu ay soo saaraan iyagoo ay kala gataan isla markaana ay aqoonsadaan kolkaana ay sameeyaan isdhexgal ku saabsan ayaa la yiri ee dhinaca qalab kala iibsashada taasoo sare u qaadaysa niyadda ama niyad wanaaga ayaa la yiri dalalka halka nagala socotaan daawadayaal waa gaanka gandunida oo dhan wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawasha qiimaha leh warar xooggan ayaa idin hayaay daawasha qiimaha aan ku sii qow wararka warbixinada dhinaca diblomaasiyadda sidoo kale daawadayaasha qiimaha leh waxay noo soo socdo barnaamijyo waaweyn oo ka imaanaya Djibouti oo waliba ku saabsan shirkii Heritage ayadoo alaaba daawasha qiimaha leh barnaamijyo badan iyo waraysiyo badan abaawateen arjeynayna macluumaad badan haday tahay dhinaca aqoonta caalamka iyo geeska Afrika waxa ka soconaya isku soo dhaweynta Soomaalida iyo waliba in mabaadi'da la ogaado guud ee dadka Soomaalida ka dhaxeeya aad horey u daawateen oo ugu dambeeyay waraysigii wasiirka hore qorsheynta qaranka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cayinte oo daawateen ku sii wararka warbixinada diblomaasiyadda caalamka oo dhan madaxweynaha dalka si Russia Vladimir Putin ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka dhawaajiyay arrin toox Mr Putin waxa uu ku tooxay isla markaana uu markii ugu horeysay Mareykanka ku caraystay in ay gaaraan halka ay ka gaareen hubka sida weyn u dheereeya ee loo yaqaano hypersonic weapons kaasoo uu sheegay in ay dalkiisa horumar xooggan ay ka sameeyeen waxa soo ka hadlayay qaar kamid ah cutubyo ciidanka qalabka sida dalkiisa magaalada Moscow ayaa waxa uu sheegay in dalka Ruushka uu markii ugu horeysay noqday dalka ugu awood badan ee dhinaca hubka guuxisa ka dheereeya ee loo yaqaano hypersonic kaasoo ah gantaalo aad u culus hubkan horta waxa uu guuxisa ka dheereeyaa 5 jibaar guuxisa ayuu ka dheereeyaa
March 5 and faster ayaana lagu naanaysaa iyadoo markaasi uu yahay hubka ugu badan ee haatan dunida ugu casrisan ee ugu badan ee dalkaasi Russia haystaan daqiiqado gudahood ayuuna ku gaari karaa goobta loogu talagalay sidoo kale gantaalahan hypersonic waxay kala leeyihiin laayro ama wax loo yaqaan markaas la kabyo kala dadameeya oo kala dildilaaca kuwaas oo la qaybi karo inta hubku sii socdo isla markaana rusheey kara dhul baaxad aad u weyn leh waxa ay arintan ka dhameysay kadib markii dalkaasi Russia ay sanadkii hore ay soo saareen hub ama gantaal dunida oo dhan gaaraya kaasoo ah noocan hypersonic sidoo kalena waxay haatan ay ku tilmaameen in qaybaha ugu dambeeyay la soo saaray ay hoosta ka xariiqday in ciid la cusiyay tartankii Mareykanka isla markaana waxa uu yiri Mr Putin oo markaasi fariin cad diray wuxuu yiri waxa aan xaqiijinayaa hadda waxaanu xaaladda aan ku sugannahay markaanu sheegno waa mid aad u weyn oo ina tusinaysa in dunidan casriga iyo taariikhdan casriga aanu ka gaadhnay halkii aan isku dayeynay waxay ahayd markii hore waxaan dooni jirnay in aanu daba raacno oo daba orodno ayuu dalka Mareykanka intii uu lagu jiray dagaalkii qaboobay dunida Mareykanku wuxuu naga horeeyay hubka noocan oo kala ah ama kuwa loo yaqaan intercontinental ballistic missiles ka laakiin dhamaantood waan ka taqlusnay haatan waxa ay Mareykanku isku dayeen ayagu inay soo gaaraan oo aynu runtii ay gaaraan ayuu halka aan taaganahay wuxuu yiri waxa aan kala rabaa in aan idin sheego waxyaalaha hubkan uu ku horeeyo waa dheeraynta oo guuxisa ka dheereeyo 5 jibaar iyo 7 jibaar mararka qaarkood sidoo kale waxyaalaha kale uu hubkan leeyahay waxa weeye gantaalkii oo soconaya oo intaas oo gantaal ka sii dilaacayaan isla markaana uu dhul baaxad weyn sii rusheeyo asagoo meesha ugu dambeysay wali aan gaarin sidoo kale waxyaalaha kale uu leeyahay waxa weeye ayuu yiri degdeg faraha badan ee hubkan uu leeyahay waxa ka sii daran ayuu yiri oo ugu basii yaab leh in aysan jirin raadar qabanaya ama ogaanaya oo Mareykanku haatan haysto ayuu yiri taasoo uu sheegay inay tahay fariin ku saabsan awoodda Ruushka in ay tahay in aan la iska indhatrin laakiin aysan ahayn hanjabaad ku saabsan in Mareykanka uu ku baabiyo doono hubkaasi waaxda dhinaca difaaca dalka Mareykanka the Pentagon afayeen u hadlay Colonel Robert Carfer ayaa waxa uu sheegay in arintu ay tahay mid aysan ayagu xaqiijin karin sheegashada isla markaana walaaca Mareykanku uusan taagnin hase yeeshee goortii horeysay email ama warqad uu diray madaxa guud ee wasaaradda gaashaandhigga Nicholas Max Spencer ayaa waxa uu u sheegay waaxda dhinaca difaaca u qaabsan qalka Senate in loo in la dedejiyo talaabooyinka dhinaca dhaqaalaha lagu sameeyo la doonayo lagu daba kaco hubka hypersonic ee dalalka Shiinaha iyo Ruushka soo badinayaan waxaana uu hindise ah keenay in hubkaasi la sameeyo qaabka ugu fiicnaa looga hortagi lahaa ka hor inta ciidweynaha Mareykanka soo gaadhin taasoo sheegay in qalabkooda la sameeyo waxa goor ay wariyaashu goor weydiinayeen su'aal ku saabsan arrintaas ayuu wuxuu sheegay Mr Esper in uu yiri waxa aan doonaynaa in aan idin sheego qabanqaabada aan ku jirno ee ah sameynta hubkan hub u dhigma ama ka sareeya waxa uu noqon karaa ayuu yiri mid qaata sanad iyo waxooga jarjara laakiin waxa kaliya aan ku xaqiijin karaa waxa weeye buu Mareykanku mar walba asaga gacanta sare yeela doona dhawaanna waxaad ogaa doontaan in aanu soo saarno hubka ugu casrisan ee markaasi ku saabsan ayuu yiri dhinaca nuclearka iyo haday tahay in aan ka hortagno hub kasta oo khatar gali kara ciidweynaha Mareykanka waxaana ujeedku yahay ayuu yiri in marka horeysa daraasaad ugu fiican lagu sameeyo hubkan iyo noocyadan kala duwan ee Shiine iyo ay haystaan ayuu yiri dalkaas Russia Mr Esper hase yeeshee waaxda dhinaca difaaca ama wasiirka difaaca ee dalkaasi Russia Sergey Shoigu ayaa waxa uu yiri waxa aan aaminsanahay ayuu yiri in ay muddo badan ku qaadan doonto qarash badan ay ku khasri doonaan inay soo gaaraan dhinaca isku burtumashada labada dal ayaa si tafatay tan iyo intii heshiiskii loo yaqaanay heshiiska caanka ah ee 1987 iyo 7 la saxay intermediate range nuclear forces tidii loo jiray kala saxideen labada dal ka soo burburay sanadkan kadib markii labada dalka Mareykanka uu ku dhawaaqay in dawladda dalka Russia ay hubkaas gantaalaha ridada dhexe iyo kuwa ridada gaaban hubka ka xambara ee la mamnuucay sanadka 87 ay dawladda dalka Russia ka been sheegayso markaana si hoose oo sira ay u suubsanayso daawasha qiimaha leh wali farka muuqda wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan warar kala duwan iyo qodobo waaweyn baa idin hay'adaha daawasha qiimaha leh gaanka gaandino oo dhan weeye iyo warbixinaha waaweyn ee dalalka Kuwait iyo Saudi Arabia waxa ay ugu dambeyntii maanta ku dhawaaqeen inay kala saxeexdeen heshiiskii aagga loo yaqaano the neutral zone fields oo ah aagga dhinaca labada dal u dhaxeeya ay isku haysteen laba ceel oo shidaal aad u badan ku tuuran yahay taasoo muddo sanad haatan ku dhow hakad ku jirtay wasiirka arrimaha dhinaca gaaska iyo shidaalka Dr. Khalid Ali Al-Fadil oo ka tirsan wasiirka Kuwait u qaabilsan dhinaca saliidda ayaa ku dhawaaqay in isaga iyo
dhigiisa dalkaasi Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ay kala saxdeen oo ah wiilka isaguna wasaaradda tamarta dalkaasi maamula ee uu dhalay Amir Boqor Salman bin Abdulaziz labada dal haatan wixii ka dambeeyay waxay sameeyeen doonaan ayaa la yiri 500 oo kun oo foosto oo maalintiiba ka soo baxa labada ceel ayadoo aan tafaasiil dheeraad laga bixin si loo kala qaadanayo laakiin waxa la sheegay in heshiis afgarad ah ugu dambeynta laga gaaray arintaasi ama heshiiska waxa loo yaqaano mawga oo ay sheegeen in labada dal ay isku afkarteen in khalaasi aan baqaad dibna loo furo arintaasi wasiirka wasaaradda dhinaca tabarta ee dalka Saudi Arabia wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Dr. Ahmed Nasir Al Mohammed iyo wasaaradda kale iyo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Kuwait Dr. Ahmed Nasir Al Ahmed Al Mohammed Al Sabah oo ah Kuwait wasiirka arrimaha dibadda ayaa isaguna ka qayb qaadatay kulanka iyadoo labada dal ee dhawaanahan oo dhan ay xuquuq weyn jirtay laakiin ugu dambeyntii waxa ay labada dal ku heshiiyeen in ay arintaasi ka heshiiyaan dhowaan ayaan ahayd markii labada dal ee Carbeed ay sheegeen in ay qarka u saaran yihiin heshiis kala saxeexda wariye iyaduna su'aal weydiisay madaxweynaha dalkaasi Russia Mr Putin ayaa sheegtay in ay shaqada iska casishay walow ay warar kala duwan ay sheegayaan in laga yaabo in shaqada looga casilay kadib markii ay su'aal aan la rabin ay weydiisay ayaa leeyahay madaxweyne Vladimir Putin laakiin madaxweynaha dalka Russia ayaa la sheegay inuu su'aasha ka caroonin isaguna si caadi uga jawaabay balse wararka ayaa sheegaya in gabadhan oo la yiraahdo Alisa Yorfana Kaya ay shaqadeeda weyday kadib markii ay sheegtay inay isu casilayso laajiga ayay tiri in ay ogaatay in shaqada laga qaadayo oo ay ka tirsanay TV-ga la yiraahdo Yamal ee ka soo baxa gobolkaasi Arctic ama waxa TV-ga sidoo kale loo yaqaan Yamal region waxa ay sheegtay in madaxweynaha su'aasha ay weydiisay ahayd mid ayada ay uga wakiilahay dadka shacabka taasoo ku saabsaneed in uu madaxweynuhu tafaasiil ka bixiyo sababta uu u kortaagan yahay ama u hortaagan yahay habsami socodka gudoomiyaha gobolkaasi Dimrit Arkayu Khof uu dadaaladana uusan ku bixinaynin in laga dhabeeyo dhisme buundo oo socota way tiri arintaasna waxay inta badan u taagan tahay ay tiri dhanka ama ka taagan tahay dhinaca barsaabka waxayna weydiisay in arintan looga hadlo heer federaal sida daraadeedna waxay sheegtay in ay doonayso in dawladda federaalka ah ee dhexe ee Russia ay soo fargeliso taasoo madaxweynuhu uu sheegay inaysan iyagu doonayeen inay fargeliyaan arrimaha maamul goboleedada balse uu sheegay inay ogaanayaan ama baarayaan eedaynta inuusan ogolayn in kaabayaasha dhaqaale gobolkaasi ay socdaan ama la hirgeliyo qaybta dambe wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda waa shaqo maale sidoo kale barnaamijyo kala duwan ayaa idin soo maqan qaybta dambe daqiiqadeed